بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaad fiidiyowgeena maanta waxaa ka hadli doonaa scripti loogu talagalay Eiki option-ka. Marka fiidiyowga inuu dheeraad maro waxaa gudagali doonaa sida loo sameeyo scriptiga looguna xiro akoonkaaga Eiki option. Haddii aad channel ku cusub tahay subscribe sar, video like sar, daawasho wacan. Marka la soo degto file-ka soo furo saan ku saari doona qoraalka asiga dhinaca calaamay kadib koobi dhaho waxa ku raabata Eiki option-ka qaybtaas oo indicators ee qoranta ku dulufo kadib waxa ku dhuftaa scripti kadib waxa ku soo dhuftaa new scripti wixii hore ugu jiray iskaga tir kadib kan cusub ku paste ku dheh intaas markaa samaysid save ku dhufo haddaad rabtid baa meesha ku furi kartaa kadib balaas ku dhufo kartaa haddaad rabtid indicators aad tagaysaa scripts aad tagaysaa qaybta marka oo scripti ku dhufanaysaa waxa sax xaqiijinaysaa horta inay isku mid aanay أنا ماشي يجي لو كده قبل سواء هذا تو صدق أفر يفايف مركا أبلاير هنس مركا كنا سكوبس أبلاير هنس أبلاير مركا ده لو كده هوري سطح بيجسمي مركا سرحة دي روح كم هنا يسجن هنس قبل بلو بدود وصل قبل عقارتنا وباي مركو عقارت كوسار وباي قبل بدود كوسارنا وصل سلو قل معنا ساس وسجن هنس اوكي marka hadda waxa gali doonaa tusaalayaashii ku saabsanay appka marka waxa ku sheegi rabay mid kale oo muhiim ah dhalinyarta aan haysan laptopka uu fiican yahay waxa ku isticmaali karaan maxaa la yiraahdaa mobilkooda oo bisi waxa ka soo kacsanaysaa ciwaankaaga qaybta mobilka chrome-ka tagaysaa eiki-option.com qoraysaa ciwaankaaga galaysaa kadibna waa ka soo furanaysaa sidaan qolka ugu saaraya iska tawa ka dhiganaysaa ana view-ga kadib saana ku saaray indicators meesha waxa kood wax dhan meesha sidii loo galeysaa marka intaas waayo hadda marka trade uu qaatay oo fiidin trade-ka waxay ogtahay inuu guuleysanayo insha Allah ilaa 5 xabo ku tijaabi waa isla arkayna natiijada akoonkan waa deemo sababtoo ah waxa ugu yeelay si mid kasta aan ugu tijaabiyo markaas oo san u bahanaan muxuu ahaay maadaama waxa tijaabiyiin oo loos aan ii galin adiga si fiican ugu fahantiin waxa kula talin lahayn haddii markaas ay kugu horeyso in marka koowaad aad ku tijaabisid akoonkaaga deemaha daadan aqoon waa akoonka 10 kun lagu siinayo waa lacag fake ah kaliya waxa la rabaa inaad ku barato dadka trade kala wada fureen trade kala wada arkayna sanad wuxuu keenaa kii kooda guulaysid kii la hadda maro insha Allah daawasho wacan haddii waxa ku soo xasuusinaya haddii wali subscribe saarin channelkeena subscribe saaro kumaalka furo ma u baahnid inaad channel soo raadsid hadda video soo dhigo duruus oo helasa فيديو قيبتنا notifications kusoo dhacaya marka insha Allah subscribe saaro dambalka furo video laksar wixii su'aalo qabtid comment-ina wareeg haddaad rabtidna la soo degtay qaybta description-ka yaala linka qaybta description ku dhufo la soo dumayska la soo deg video-na kala meesha yaalo haddii muxuu ahay aad u baahan tahay wax qoraal naaqis daartid description meesha lika aad bis meesha lika tixraac marka website-kaasna waxaa sameyn kartaa waxa soo dhigi kartaa post-kaaga sida YouTube ku shaqeeya laakiin uu kaga fiican yahay YouTube sababtoo ah YouTube wuxuu xijinayaa 4 saac in lagu daawo laakiin asiga wuxuu xijinayaa bis 100 follow inay 100 followers inay shid iyo 1000 views waxay ku heli kartaa anagu website-kaas ayaan daba wareegsado video soo dhigay insha Allah ka faa'iideysan kartaa oo wareegsan kartaa waxa soo dhigi kartaa marka saas waa daba baahan tahay qaybta description-ka aqoon ka samaysanaysaa bis posts waxa soo dhigi kartaa articles videos iyo gallery sita soo dhigi kartaa inta lacag waa ka sameynaysaa page views ka lagu dhufanayo mid daawasho kasta lagu dhufanayo 0.01 ay ku dhuftaan ala daawashada cilmi tahay haddii kun uu daawato $10 helisid marka YouTube xitaa $10 kuma bixiyo kun hadda ku daawato adiga wuxuu ku bixiyaa Soomaaliya $6 meelaas ku bixiya marka dalka joog uu ku siinayo lacag fiican uu ku siinayo lacagtadan waxa uga dalban kartaa si AFC Plus ah ama credit card uga dalban kartaa ama faturta uga dalban kartaa qaybta waxa la hadlaysaa caawinada ee kan ku subxinaya hadaba marka cashirkeena ku soo laabano waa u jeedina hadda trade-kii labaad oo ku qasaaray kii saddexaad uu guuleystay afraadna waa uu ku socdo hadaba warina markaas natiijadiisa sidee noqoto walaal waxa ku xasuusinaya wali hadda channel subscribe saar si cashar fiican oo faa'iido leh aan soo dhigin meeshan aad dib u la socotid marka waxa farta mobilka video laksar comment-ina wareeg su'aasha hartid marka script-kan waxa lagu talagalay Eiki option daartid scripts lacag iib ah oo ila soo xiriir kartaa waxa ayaa scripts badan oo ayakana sidaan ka hersay u shaqeynay
almost no loss adiga u badnaan wax khasaara ma kuwaasna waa tijaabiya daartid eeka waa lacag waa is xiriir kartaa wax badan ma ahan kan ugu badan waxaa $7 waa la xiriir kartaa insha Allah daartid robotsna waa haya oo eekana loogu talagalay optionka haddii aad bucket option isticmaashid sidoo kale waxa ku haya robots iyo casharo ku saabsan trade iyo istiraatiijiyo cusub waa ku baray kartaa casharaas marka ila soo xiriir kartaa qaybta oo description ku yaala meesha laga soo xiriiray marka insha Allah daawasho video dhamaystiran videogan qaybtiisa ugu dambeeyo waxa ku jirto qaybta ugu muhiimsan ee videogeena oo ah resultska iyo waxyaabo kale ugu talagalay dad ku xiran channelkayga inay ka faa'iideystaan marka insha Allah ila dhamaadkan la daawo si video iyo waxa ku jiro uga faa'iido waxa kale ku xasuusin lahay waxaan sameeynaa website loogu talagalay in lacag laga sameeyo tusaalahan in lagu xiro AdSense ama adiga naftirkaaga baa xaysiina hosting garaysid ama xaysiinta u qabatid oo markaas website-ka lagu soo bandhigay xaysiisaas lacag uga sameeysid marka waliba waa website SEO aad u sareeyo search engine-kooda macnaha aad u sareeyo oo ka faa'iideysan kartaa waa samaysan kartaa bishii waxa ka sameyn kartaa $1 ka badan marka daartooda waa ila soo xiriiraysaa description link ugu yaala qiimo hooseeyo oo xitaa meelaha kale looga sameeyna ku sameeyna insha Allah ka faa'iideyso ayadana waa faa'iido kale marka insha Allah daawasho waa videoga waa arkayna natiijada ka soo baxday